falaad u foolxun oo argagax leh oo ay ku nafaayeen ugu yaraan 5 qofood kuna dhaawacmeen in ka badan 200 qofood oo qaarkood halis yahay dhaawacoodu ayaa fiidnimadii xalay ka dhacay suuqa Christmaska magaalada Magdeburg ee dalkaasi Jarmalka. Todobadii fiidnimo ee xalay ayuu nin wata gaari BMW ah oo xawaare sare ku socdo soo jiray barihii control suuqaasi wuxuuna dhex jibaxay oo dul mariyay gaarigiisii dadweynihii ku sugnaa suuqa. ninkan gaariga dadka dul mariyay ayaa ah dhakhtar 50 jir ah oo u dhashay dalka Sacuudi Carabiya waxa uu Jarmalka soo galay sanadkii 2016. ninkan ayaa kol hore ka baxay diinta Islaamka waxa uu ahaa bilaadiin aad u dhaleeceeyo una nacab diinta Islaamka. ninkan ayaa la sheegay in uu baraha bulshada aad ugu muujin jiray nacabka uu qabo Islaamka waxa uu sidoo kale ka caawi jiray dadka khaliijiyiinta ama Carabta ee ka baxa diinta Islaamka sidii ay ku soo gaari lahaayeen Yurub si ay magangalyo uga helaan. erayadii ugu adkaa ee uu bartiisa X ama Twitter ku qoray waxa kamid ahaa in Jarmalka uu Yurub ku faafinayo Islaamka isagoo oo ku dhaleeceynaya dawladda Jarmalka qaabilaadda iyo magangalyada ay siinayso qaxootiga muslimiinta ah ee daafaha dunida uga yimaado. sidoo kale ninkan ayaa la sheegay in uu aad u taageersanaa xisbiga cunsuriyiinta ee AfD. hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf ayaa sheegay oo saaka mar uu booqday suuqa ay waxyeeladu ka dhaceen in falkan yahay mid aad u fulxun oo waxashnimo ah. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Norway Espen Ede ayaa isaguna cambaareeyay falkan. booliiska magaalada Oslo ayaa xabsiga u taxaabay nin eedeysana dil ah ka oo xalay fiidnimadii 3 qofood ku dhex mindiyay dukaanka Vulcan ee magaalada Oslo. ninkan ayaa yimid dukaanka si uu u waxyeelayo gabar kamid shaqaalaha dukaanka oo sida la sheegay uu xiriir kala dhaxeeyay. ayay shaqaalihii dukaanka ayaa markiiba u soo gurmaday gabadha markii uu ku bilaabay in uu mindiyeeyo. sidaana waxa ku dhacay dagaal dhex maray isaga iyo shaqaalihii kaas oo isaguna sababay in uu laba kale oo kamid shaqaalaha dhaawaco. booliiska oo goobta soo gaaray ayaa markiiba qabtay eedeysanaha sidoo kalena laba kamid shaqaalaha dukaanka oo la sheegay in ay dagaalka ku lug yeesheen ayaa mid kamid la xiray. ayay markii dambe ayaa la soo daayay iyadoo uu booliiska u codsaday in ninkani uu ku jiray isdifaacid xaalad degdeg ah oo uusan lahayn wax dambi ah. marka laga soo tago gabadha dhaawaca ah ee tooreyda waxyeelada loogu geystay waxaa sidoo kale ku dhaawacmay laba kamid shaqaalaha dukaanka kuwa oo iyaguna caafimaadkooda la tacaalayo. jasiiradaha dalxiiska caanka ku ah dalka Spain ee Canary gaar ahaan labada jasiiradood ee Lanzarote iyo Fuerteventura ayaa digniino culus oo dhanka cimilada laga soo saaraya. Machadka saadaasha hawada ee dalka Spain ee Met ayaa ka digayo xaalado khatar ah oo ku soo foolay isbuucan jasiiradahaas. waxayna sheegeen inay filayaan roobab aad u culus iyo dabaylo xooggan oo ku soo foolay jasiiradahan. dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha ayaa labaduba la faray inay muujiyaan taxadir dheeri ah kana fogaadaan sidoo kalena waxaa la faray in aysan hawoon in ay ku dabaashaan xeebaha jasiiradahaasi ku yaala. waxaana laga dalbaday in ay si dhagan nugul u raacaan fariimaha iyo talooyinka iyo tilmaamaha ay bixinayaan hay'adda saadaasha hawada si ay u badbaadaan. golaha wasiirada dalka Norway ayaa taliyaha cusub ee ciidamada booliska dalka u magacaabay Hakon Sjöstedt oo 61 jir ah waxa uu xilka kala wareegi doonaa Benedikt Bjørnland oo hore u ahaa taliyaha ciidamada booliska dalka Norway marka ay taariikhdu tahay 31 bisha Maarso 2025. ilaa 7 sargaal oo tartamaysa jagadan ayuu kaga guuleystay Hakon oo hore u soo ahaa marka laga soo tago taliyaha boolis waxa uu soo noqday xeer ilaaliye waxa uu hore u noqday taliyaha tababarka dugsiga booliska Norway sidoo kalena waxa uu mar soo noqday taliyaha ciidamada booliska oo Stephen Mar laga soo bilaabo sanadkii 2017 waxa uu ahaa kaaliyaha taliyaha booliska dalka Norway. halka wararka ugu door koraan maanta idinkaga imaanaya oo Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan idin la socodsiinayaa anigoo Cabdullaahi Shiine.